bismillaahi raxmaani raxiim wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta caalamka waa 10ka bisha Juulaay sanadka 2026 kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta ee maanta oo Jimco ah waa maalin Jimco fadlan ha hilmaamin sidii caadada inoo ahayd isxasuusinta wanaaga iyo sidoo kale u samafalka waalidka in laga qaado wadooyinka waxyaabaha dadka dhibaya qodobada qaybtan aan kugula wadaagi doona waxaa kamid ah dhibaatada dagaal ee Iiraan iyo u dhaxaysa Mareykanka kaliya kuma koobna shidaalka iyo xirnaanshiyaha marinka Hormuz waxay gaari doontaa marxalado kala duwan iyada oo laga baqayo xaalad abaar ah oo dalalka qaliijka dagaalkan ma waji kale ayuu yeelan doonaa ma waxaan joognaa bilowga marxalad cusub oo dhanka dagaalka ah mise gobolka waxa uu jira hal qalad oo kaliya in uu galo dagaal aan la xakameyn kareynin hal gantaal oo ku dhacay duleedka magaalada Bushehr ayaa maanta su'aal weyn wuxuu hordhigay madaxda gobolka ma weerar xadidan ayaa soconaya mise waa bilowga dagaal cusub oo dabkiisa uu gaari doono khaliijka oo dhan warbixintaas ayaan kula wadaagi doonaa iyo warbixin kale oo ka yaabinaysa bal ka waran adiga oo shaqo soo qabtay howlo sirdoonna ka soo shaqeeya haddana howlgab ah in aad xogtii ugu muhiimsaneed ee dalkii aad ku sugneed aad gacanta u geliso dal kale adigoo xitaa qaadanaya lacag aadan qaxwo ku iibsan kareynin siraha gaashaanbuurta NATO magacyada saraakiisha MI6 iyo awoodda difaaca dowladda Ukraine maanta haddii aan ku iraahdo waxa yaalaan dalka Ruushka ma aaminaysa warbixintaasi iyo warbixino kale oo ku saabsan suuragalnimada Turkiga iyo Israa'iil inay fooda isdaraan iyo Kuuriyada waqooyi tayeynteeda hubkeeda nuclearka oo weli sii socota iyo qodobo kale ayaan kula wadaagi doonaa haddii aan fursad u helno insha Allah soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo maracadda show barnaamijka falanqaynta caalamka ma doonaysaa sidan oo kale in waalidka looga cumreeyo halkan waxaa uga cumreynayaa Abu Cabdi Nuur Ismaan oo isoo wakiilatay gabadhiisa shirkad la hubo oo aan damiin ka nahay almahadiyiin la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mar kale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan ku hormarayaa macluumaadka ku saabsan 24kii saac la soo dhaafay duqeymo culus ayaa la isweydaarsaday Iiraan waxa laga bartilmaameedsaday xarumo dhowr ah inkastoo xalay goobo dhowr ah oo la duqeeyo dowladda Iiraan kaliya ay ka soo qaadatay hal gantaal oo ku dhacay mid ka mid ah magaalooyinka koonfur bari dalkaasi Iiraan ayaa haddana waxa la isweydiiyay su'aal ku saabsan weerarka lagu qaaday saldhig ciidan oo ku yaala duleedka magaalada Bushehr lagu magacaabo waa magaalo ay ku taalo xaruntii tamarta korontada nuclearka ee Ruushka uu dhisayay weerarkaasi wuxuu noqday calaamadii ugu dambeysay ee muujinaysa in dagaalka Mareykanka iyo dowladda Iiraan weli uusan dhamaanin balse uu galay marxalad kale oo cusub oo ka ballaaran duqeymihii hore haddii warbixintii xalay aan idinkula wadaagay wadada muhiimka ah ee Mareykanka uu bartilmaameedsaday iyo saameynta Iiraan ay ku yeelan karto haddana waxa aad loo falanqeynayaa saldhigan oo magaalada Bushehr ku yaalay wakaaladda wararka ee dowladda Iiraan ee IRNA waxay soo xigatay gudoomiye ku-xigeenka gobolkan ee arrimaha siyaasadda iyo amniga oo sheegay in gantaal ay soo rideen waxa uu ku tilmaamay cadowgooda oo Mareykanka iyo Israa'iil uu kala jeeday inuu ku dhacay xarun ciidan oo duleedka magaaladani ku taala xaruntii ciidan iyo waxyeeladii gaartay waa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo laakiin muhiimadda magaaladani kuma koobno saldhigga ciidanka ee la beegsaday magaaladani waxa ku yaala warshada kaliya ee ganacsi ahaan koronto nuclear ah u dhalisa dowladda Iiraan ilaa haddana ma jirto caddayn muujinaysa in xaruntan lafteeda waxyeelo ay soo gaartay inkastoo goobta la beegsaday aanu sidaa kaga fogeyn xarunta laakiin weerar ka dhaca xitaa agagaarkeeda wuxuu si degdeg ah u sii kordhin karayaa walaaca caalamiga ah haddii gantaal si qaldan ugu dhaco xaruntani ama nidaamyada korontada ama xitaa qaboojiyaasha ku xiran dhacdadan waxay gabi ahaanba ka gudbi kartaa dagaal military oo caadi ah waxayna isu bedelaysaa xaalad nuclear ah iyo sidoo kale deegaan caalami ah oo la beegsaday sidaa daraadeed xitaa saldhigan ciidan oo ku dhow magaalada Bushehr haddii weerar lagu qaaday miisaanka siyaasadeed iyo jawaabta dowladda Iiraan waa mid ka culus jawaabihii hore ay bixin jirtay markasta oo Iiraan weerar lagu qaado jawaabteeda waxay ku dhacdaa dalalka qaliijka shalay waxay Iiraan soo saartay hanjabaad ah in Kuwait iyo Bahrain sheekada aysan ku ekaan doonin oo dalal kale la beegsan doono hadda cabsi kale ayaa soo kordhay maxay tahay cabsidaasi dalalka qaliijka waxay martigeliyaan saldhigyada Mareykanka waxay hadda ay noqdeen goobta Iiraan ay si toos ah u beegsato markastoo cadaadis military Mareykanka Iiraan uu saaro
fariinta Iiraanna waa mid iska cad oo waxay taagan tahay haddii Maraykanka uu isticmaalo saldhigyada gobolka ku yaala isagoo soo qaadaya weerar Iiraan ka dhana dowladaha martigelinaya saldhigyadaasi kama badbaadi doonaan jawaabteena. Tani waxay dalalka qaliijka gelinaysaa xaalad adag. Waxay dhinac ka doonayaan ilaalinta militariga dowladahani, laakiin dhinaca kale ma doonayaan in dalkooda laga dhigo furun lagu dagaalamayo. dalalka qaliijka waxay leeyihiin awood dhaqaale oo aad u weyn, laakiin waxay ku tiirsan yihiin kaabayaal aad xasaasi u ah oo dhanka Maraykanka. qaybta muhiimkaana marka waa dhanka biyaha oo dadku ay cabaan. haddii jawaabaha dowladda Iiraan ay sii socdaan lana beegsado dalalka qaliijka, waxaa laga baqayaa xaalad abaar ah oo halis ah inay ka dhalato ama ay ka dhacdo wadamada qaliijka. maxaa yeelay biyaha ay isticmaalaan inta badan waxay ka yimaadaan dhanka badda oo la sifeeyey. xarunta sifaynta biyahana waxay u baahan tahay koronto, shidaal, qalab farsamo iyo marin badeed oo ammaan ah. haddii marka dagaalka uu ku fido xarumaha korontada, dekadaha, warshadaha saliidda ama xarumaha biyaha lagu sifeeyo, dhibaatada si degdeg ayay uga gudbi kartaa dagaalka dhanka militariga iyadoo isu bedelaysa xaalad nololeed, yacni in goobaha aasaasiga la iska beegsanayo. taasi marka micnaheedu ma ahan in dhammaan dalalka qaliijka hadda ay ku jiraan abaar degdeg ah, laakiin waxaa laga baqayaa in mustaqbalka abaar ay la kulmi karayaan dowladaha qaliijka sida ay warbaahinta ay qorayso. waxaana jira in biyaraan dabiici ah hadda laga dareemayo wadamo dhowra kuwaas oo qaliijka ka mid ah, kuwaas oo inta badan sifeeya ee biyaha dhanka badda ah. haddii korontada ay ka go'do marka xarunta sifaynta ama ugu yaraan la beegsado kaabayaasha shidaal ee muhiimka u ah xarumahaasi, malaayiin qof ayaa waqti gaaban gudaheed waxay dareemi karayaan saameynta arrintan. sidaa daraaddeed khatarta marinka Hormuz iyo jawaabaha dowladda Iiraan kuma koobnaan karayaan dhoofinta saliidda, waxa sidoo kale ay taabanaysaa cuntada, biyaha, korontada iyo awoodda magaalooyin badan oo wadamada qaliijka ah. waana sababta hadda loo saadaalinayo ama laga baqayo in dalalka qaliijka mustaqbalka ay dareemi karayaan xaalad abaar oo aad u daran. saameynta iyo cabsida wadamada qaliijka marka kaliya biyaha kuma koobna. qaliijka wuxuu dibadda ka soo iibsadaa inta badan cuntada uu isticmaalo. qiyaaso kala duwan ayaa muujinaya in dalalka gobolka ku dhawaad 80 ilaa 90% cuntadooda inay dibadda kaga timaado, iyadoo qayb weyn oo badeecadahaasi ka mid ah ay soo maraan ama ay ku tiirsan yihiin marinada muhiimka ee u dhow marinka Hormuz. tani marka waxay ka dhigan tahay haddii Sacuudiga, Qatar, Kuwait ama Imaaraadka Carabta ay haystaan lacag aad u tiro badan, yacni lacagtu inaysan si toos aysan u keenaynin cunto, haddii maraakiibta istaagaan, caymiska maraakiibta qaali uu noqdo, dekeduhu ay xirmaan ama shidaalka gaadiidka sare uu kaco. warbixintan marka waxaa aad uga walaacsan Britain iyo dowladaha kale ee gobolka. dowladaha Bahrain iyo Kuwait oo kale waxay si gaar ah ugu nugul yihiin hakad ku yimaada sahayda, sababtoo ah waxay leeyihiin dhul aad u yar, wax soo saarka beerahooda aad buu u xadidan yahay, baqaaro isku mid u dabooli karaya dhammaan baahiyada iyo noocyada cuntada ma haystaan. warbixinta saameynta dagaalka marka waxay tilmaamaysaa in kaydka raashin ee asaasiga qaar ka mid ah dalalkan uu dabooli karayo dhowr bilood oo kaliya, laakiin qudaarta, hilibka, caanaha iyo badeecadaha si dhaqso ah ayay u halaabaan, mana haystaan kayd muddo dheer sii socon karaya. sidaa daraaddeed marka wasiirka arrimaha bariga dhexe u qaabilsan dowladda Britain waxa uu leeyahay qoraal uu soo saaray, marka la eego xiritaanka marinka Hormuz wuxuu dadka u nugul uu ku sii riixi karayaa gaajo, faqri iyo abaar, waxaana uu ku tilmaamay silsilad dhaqaale oo cad. waxa aad loo saadaalinayaa suuragalnimada marka dalalka qaliijka inay arrintan la kulmi karayaan haddii aanan xal kama dambaysa la helin. dhinaca kalena qaar ka mid ah saraakiisha iyo la taliyaasha arrimaha amniga waxay aaminsan yihiin in dagaalka Iiraan iyo Maraykanka uusan idlaanin, balse marxalad cusub la galay. marxaladda koowaad waxay ahayd duqeymo ballaaran oo lagu bartilmaameysado xarumaha gantaalada, ciidamada iyo barnaamijyada nuclear-ka ee dowladda Iiraan. laakiin marxaladda cusub waxay leedahay dhowr arrin oo isku xiran, oo Maraykanka wuxuu si joogto u garaacayaa dalkaasi Iiraan. Tehran way ka jawaabaysaa oo saldhigyada qaliijka ayay bartilmaameysanaysaa, maraakiibta ganacsiga waa la weerarayaa, marinka Hormuz waa sida hub dhaqaale oo kale. la taliyihii hore ee arrimaha amniga ee madaxweyne Trump wuxuu leeyahay waa in wax laga qabtaa arrimahan, haddii kale marxaladda kale ee cusub waxay keeni doontaa in yacni gantaaladiina ay yaraadaan, dowladihii gobolkana saameyntu ay dareemaan oo kaliya aysan ku koobnaanin qaliijka xitaa wadamada caalamka ee arrintan saameyn ku yeelato. Iiraan waxay dib u soo ceshatay ku dhawaad 50% kaydkeedii gantaalada intii wadahadallada lagu jiray oo xaaladdu ay deganeed. sidaa daraaddeed waxaa la isweydiinayaa suuragal ma tahay haddii marxaladani cusub ay sii socoto in dagaal buuxa si toosa loo aado. dagaal buuxa waxaa si toosa loo aadi karayaa haddii dhowr arrimood ay dhacaan.
waatan koowaade haddii iiraan weerarada ay ka fulinayso wadamada khaliijka inta badan lagu bartilmaameysado tiro aad u badan oo askarta maraykanka ah, madaxweyne trump wuxuu wajihi karayaa markaasi cadaadis gudaha si uu kaga jawaabo arrintaasi. sidoo kale haddii ay dhacdo in weerar lagu dhaawaco xarumaha nuclearka iyo xarumaha kale ee muhiimka ee dowladda iiraan, waxaa suuragal ah in dagaalka uu ka xoogaysto sida hadda waxay u socdaan. haddii iiraan gebi ahaan mar kale ay xirto marinka hormus, miinooyin kale la dhigo, maraykankana isku dayo inuu si awooda marinkaasi uu ku furo, marxaladdu way isbedeli kartaa. haddii israa'iil si toosa ay ugu soo biirto duqeymaha, iiraan waxay ballaarin kartaa jawaabaheeda dhanka gobolka, oo gantaal hadduu ku dhaco xarumaha sifaynta biyaha iyo korontada iyo saliidda iyo gaaska dabiiciga ee dalalka khaliijka, dowladaha gobolka waxaa suuragal ah iyagana si toosa inay arrintan saameyn ay ugu yeeshaan. adigu maxay kula tahay? like saar muuqaalka. warbixinadaanina waa inta badan macluumaadyo aan ka soo ururiyey warbaahinta sacuudiga, imaaraadka carabta, qatar iyo sidoo kale warbaahinta kale ee reer galbeedka. inta badanna waxaan diiradda ku saaraynay sida xaaladdu isugu xigsan karto iyo marxaladaha xiga, iyadoo laga baqayo weji kale inuu yeesho dagaalka hadda ka soconaya gobolka bariga dhexe. aragtidaada nala wadaag, like saar muuqaalka, kanaan raalli noqo haddii aan ku dheeraanay macluumaadkan. aad baad u mahadsan tahay. markaan aan eegno, dowladda talyaaniga ayaa waxaa lagu waramayaa inay xirtay nin magaciisa lagu sheegay Gavino Piras. wuxuu ahaa sarkaal hore uga tirsanaa sirdoonka dalkaasi, kadib markii lagu eedeeyey inuu xog sir ah u gudbiyey sirdoonka dalka Ruushka. Piras waxaa la sheegay inuu la shaqeynaya nin lagu magacaabo Mikhail Astakhov. waa nin Raashka u dhashay. Talyaanigu wuxuu sheegay ninkan inuu kaga shakisan yahay inuu ka mid yahay sirdoonka garabka military ee dowladda Ruushka, kana shaqeeya safaaradda Ruushka ee magaalada Rome oo dalka Talyaaniga ah. kiiska kuma koobna markaa hal nin oo kaliya. Piras waxaa lagu tuhmay inuu gudaha ciidamada Talyaaniga uu ka samaystay shabakad aad isugu xiran oo xogaha soo ururinaysa. sarkaal hore ayaa lagu waramayaa in arrintani loo xiray, halka 5 qof oo kalena looga shakisan yahay inay ahaayeen ilaha xogaha muhiimka u gudbinayay ninka la shaqeynaya sirdoonka Ruushka. sidee wax u dhaceen? Piras waxaa xiriir qarsoodi ah oo la lahaa ninka Ashtakov lagu sheegay magaciisa. waxa uu kulamo kala duwan oo la yeeshay mas'uuliyiin kala duwan, iyagoo goobo dhowr ay ku kulmeen sida wararku ay sheegayaan. inta ugu badanna kulamadu waxay ka dhici jireen gurigiisa iyo harada lagu magacaabo Bracciano oo magaalada Rome oo dalka Talyaaniga ah. booliiska iyo sirdoonka Talyaaniga ayaa muddo dheer la socday dhaqdhaqaaqooda. waxaa la duubay muuqaalo iyo codad laga helay kulamadooda. duubistan waxay muujisay marka in Ruushka oo ninka Piras ah si toos ah ugu gudbin jiray su'aalo iyo liisaska xogta la doonayo. Piras isagana xogta ayuu si gaar ahaaneed si toos ah wax uu kaga heli jiray saraakiil dhanka ciidanka ah, waxaana la sheegay inuu xogaha ka soo iibsan jiray dad ka tirsan ciidamada Talyaaniga. arrintaasina waxay caddeyn u noqotay cabashadiisa ku saabsan in xitaa lacagta Ruushka uu siin jiray aysan ku filnayn, maadaama uu siinaya dad kale si uu xoga kaga helo. intaasi kadib maxaa dhacay? sababta ugu weyn oo arrimahan oo idil ay u dhaceen waxay ahayd dhanka lacagta. sida baaritaanka lagu sheegay, Piras wuxuu diyaar u ahaa inuu xogta dalkiisa iyo tan xulafadiisaba uu lacag uu ku bedasho. wuxuu xitaa Ruushka uu kaga cawday lacagta inay aad ugu yareed, isagoo sheegay in xitaa lacagtii uu heli jiray aysan dabooli jirin qarashaadka iyo lacagaha uu siinaya dadka xogta uu ka helayo. waxaa sidoo kale la rumaysan yahay inuu ka faa'iideysan jiray walaaca dhaqaale ee saraakiisha ama shaqaalaha ku dhow howlgabka, waxaana dadka qaar ay u soo dhowaan jireen isaga oo kala hadlaya fursado shaqo ama tababaro inta badan ay qaban karayaan marka shaqada ay ka fariistaan. kadibna wuxuu usii rogi jiray sida ilo xogeed oo macluumaadka uu ka helayo. dhanka Ruushka, ujeedadu waxay ahayd in Moscow ay hesho xog aysan si caadi uga heli karaynin hay-adaha gaashaanbuurta NATO, Ukraine iyo sirdoonada reer galbeedka. maxay ahaayeen xogaha ugu muhiimsan ee ilaa iminka loo gudbiyo dowladda Ruushka? xogaha ugu halista badan waxaa ka mid ahaa faylka hay-adda MI6 ee dowladda Britain. Piras waxaa lagu eedeeyay inuu helay fayl sir ah oo lagu magacaabo One List MI6, kaasoo ay ku jiraan faahfaahin 10 qof oo u shaqeynaya sirdoonka Britain. sirdoonka Talyaaniga wuxuu Ruushka uu siinaya xog ku saabsan saraakiisha Talyaaniga ee la socday safaaradda Ruushka iyo waxa Rome ay ka ogtahay dhaqdhaqaaqyada sirdoonka Moscow. macluumaadka kale oo bixiya waxay ahayd digniin la xiriirta basaasiin Raashiyaan ah. waxaa lagu eedeeyay inuu Ruushka uu uga digay in la aqoonsan karayo basaasiinta ka howlgalaysa magaalada lagu magacaabo Matera. Moscow waxay si gaar ahaaneed u doonaysay xogta ku saabsan awoodda Ukraine ee ka hortagga diyaaradaha iyo gantaalada, gaar ahaan nidaamka Sambaty loo yaqaano oo Talyaaniga uu siiyay xukuumadda Kiev. Ruushka sidoo kale wuxuu xiiseynayay gantaalada difaaca cirka ee wadamada qaaradda Yurub, kaasoo Ukraine ay doonaysay inay gudaha dalkeeda ay geyso si ay uga hortagto weerarada ka imaanaya dhanka Ruushka. waxaa sidoo kale loo gudbiyo xog ku saabsan tirada gantaalada loo yaqaano Storm Shadow oo Talyaaniga uu qorsheynayay inuu iibsado.
xogaha kale ee ruushka gacanta uu ku dhigay waxaa ka mid ah barnaamijka talyaaniga ee doomaha iswadaya kuwaas oo sida la sheego meelo fog in laga hagi karayo. waxaa kaloo uu gudbiyey baaritaanada talyaaniga uu ku sameynaya taangiyada ruushka ee nooca T-19 loo yaqaano iyo sida khubarada ay u falanqeeyeen hubka ku rakiban taangiyadaasi iyo sida talyaaniga uu u qorsheeyey ka hortagidda iyo helidda macluumaadka gudaha dalka ruushka. waxaa isweydiin mudo marka dhammaan xogahan sidee ayuu u gudbin jiray. waxaa la adeegsaday habab basaaseed oo qadiimi ah laakiin si taxadar badan loo isticmaalay. Ashtakov wuxuu su'aalaha ama xogta inta badan uu doonayo ugu soo qori jiray waraaqada yaryar, kadibna Beras ayaa loo gudbin jiray marka ay kulamada qarsoodiga ay yeeshaan. intii lagu guda jiray kulan ka dhacay guriga Beras uu ku leeyahay dalka Talyaaniga, waxaa telefoonka Ashtakov uu geliyay sida la sheegay foorno microwave ah si looga hortago in la raad raaco ama ugu yaraan la dhageysto. dukumentiyada sirta ahna waxaa lagu qorin jiray god ku dhex yaala gidaar, taas oo ahayd habka loo yaqaano deep drop. habkani xogta waxaa meel loogu reebaa si qof kale uu uga qaato, iyadoo oo labada qof oo kaliya si toos ah aan lagu arkaynin inay isu yimaadaan kadibna xogta ay la kala wareegaan. waxaa sidoo kale kulamada ay hayeen kuwo foolka fool ah oo xogaha lagu kala gudbin jiray, codsiyada iyo lacagtana halkaas ayaa inta badan looga qaadi jiray Beras. natiijadii ugu horeysay waxay noqotay in Beras la xiro, sargaal kale oo horeyna la qabto, halka 5 qof oo kalena baaritaan lagu sameynayo. xogta kale ee ruushka uu gacanta uu ku dhigayna waxaa la sheegay inay qayb ay ka tahay xogta wadamada gaashaanbuurta NATO. waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso marka su'aasha ah goorma ayay sheekadan oo dhan ay dhacday. 3 maalin ka hor ayaa sheekadan oo dhan ay bannaanka ay timid, waxaana si rasmi ah loo shaaciyay 7 bishan aan ku guda jirnay ee July 2026, markaas oo xeer ilaalinta dowladda Talyaaniga ay ku dhawaaqday xariga Gavino Raul Beras iyo saraakiil hore uga tirsanaa sirdoonka Talyaaniga. labadooduna waxaa lagu eedeeyay inay xog sir ah u gudbiyeen dowladda Ruushka. laakiin warbixinadu waxay muujinayaan in bishii May 2025 ilaa iminka baaritaan lagu sameeyay sargaalkan. maalintii shalay oo 9ka July ahaydna waxaa Talyaaniga gabi ahaanba laga eriyay 2 sargaal oo military oo ka tirsanaa safaaradda dowladda Ruushka, kuwaas oo lagu tuhmay inay ku lug lahaayeen shabakadan basaas ee isku xiran. like sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay. hal su'aal aan ku weydiiyo, sheekadan waqtigan aad daawanayso saacadda ay ku tahay qaybta hoose ma noogu reebi kartaa? mahadsanid.